بسم الله الرحمن الرحيم وكوبي لواتنك بشا أكتوبر لبكون شن يلباتن وقيبتي كوادي ورarkeena maanta qodobada aad ku daawan doonto qaybtan waxa ka mid noqon doona hadii Rabbi idmo ciidamada Masar ee nabad ilaalinta dhulka marinka Gaza ayaa la diyaariyay iyadoo oo la arkay cutubiyadii ugu xoogganaa Israa'iil waxa ay walaac ka muujinaysaa ciidamadaasi oo ay u aragto inaysan ahayn kuwa nabad ilaalina balse ah kuwa duulaan ku qaadi kara saacadii ay doonaan. Israa'iil shalay waxa ay ka booday dalka Turkiga maantana Masar ayay ka walaacsan tahay oo ay shalay dalbatay. Laba af oo kala duwan ayaa hal mar ka soo wada yeertay. Arrintaasi falanqaynteeda Middle East ay warbixin ay ka qortay ayaan maanta idin hayaa. Sidoo kale warkeena waxa ka mid noqon doona kulanka Trump iyo Putin oo trending noqday isla markaasna caalamka aad loo falanqaynayo. waxay u egtahay inuu baaqan doono balse waxa muuqata in dhinacyada Yurub aysan wax saameyn ku yeelan doonin hadii ay saameyn ku yeelan doonina inay fashil ku soo dhameeyaan kulankaasi inta uusan qabsoomin ama qabsoomidiisa inay fashiliyaan waxba uguma markaasi ugama dhigna ayaa la yiri markaasi dhinaca dalka Ruushka yani Yurub hadii aan si fiican kugu sheego yani Yurub wax badan uma aha kulanka Trump iyo Putin sida daraaddeed inay fashiliyaan wax badan kuma qaadanayso warbixintaas ayaynu fiirin doonaa oo markaasi Sputnik oo dhinaca dalka Ruushka ay markaasi soo gudbisay sidoo kale warkeena qaybta koowaad ee galabta waxa ka mid noqon doona waxa noogu daran oo na dhibay oo dhuunta noo galay maaha Iiraan maaha kooxaha iska caabinta mana ahan dalalka Carbeed ee awoodda iyo waliba hubka xoogan haysta balse waxaana dhibay koox ka dhisan dalka Yemen sargaal sirdoonka Israa'iil ka tirsan oo la hadlay Yaxnood oo isla dhulkooda ka soo baxa ama dhulka xoogga ay ku haystaan qodobadaas ayaan fiirin doonaa qaybta koowaad ee wararkeena maantay soo dhawaada muuqaalka share gareeya like si aragtida qaybta commentiga asxaabteena YouTube fadlan subscribe siista aad baad mahadsantihiin aynu guda galno qodobka koowaad ee wararkeena maanta dowladda dalka Masar oo Israa'iil horay ay u dalbatay in ay qayb ka noqoto ciidamada nabad ilaalinta ee la geenayo dhulka marinka Gaza ayaa waxa ay muujisay cudud xoogan iyo awood xoogan oo markaasi ay ku sameynayso xuduudda dhinaca labada dal dowladda dalka Masar ayaa Middle East ay waxa ay soo faagtay inay diyaarisay cutubiyo ciidamo isugu jira nabad ilaalin iyo waliba kuwa sirdoona kuwaas oo lagu dhex siideyn doono dhulka marinka Gaza asaatee laba shaki ayaa jira ayay majalada Middle East ay leedahay shakiga koowaad waxa uu yahay in marka la fiiriyo ciidamada sirdoonka ah ee Masar ay gudaha Israa'iil u daabulayso ay noqon doonaan kuwa iyaga wax u soo sirdoona mise kuwa sirdoon ka noqda halka ay sida dhabta ugu sugan yihiin ciidamada xaquudirka ama ururka Hamas meelaha ay degan yihiin meelihii dadka ay ku haysteen yani sirdoon Israa'iil u shaqeeyay laakiin magac nabad ilaalin halkaas ku joogo qodobka labaadna waxa uu noqonayaa in isla Masar lafteeda ay sirdoonkaasi dirsato si ay markaasi u ogaato xuduudda gudaha Israa'iil dhulka xoogga ay ku haysato waxa ka socda ciidamada jooga hubka yaala difaacooda intuu la egyahay yani waxa leeyahay iyaga laftirkooda ayaaba rababa inay sirdoon halkaasi geystaan labadaas qodob waa la sheegay haddaba Israa'iil maxay marka arintani ka qabtaa warbixinta oo sii socoto waxay leedahay oo Middle East ay Israa'iil way ka walaacsan tahay ciidamadani Masar ay keenayso maxay yeelay waxay u muuqdaan ciidamo yani ka duwan wixii iyada ay dalbatay ciidamo yacayooda ciidamo awood aan lahayn ciidamo marka wax lagu tuuro amar ka sugaya isla Israa'iil in looga jawaabo ayay sugayeen sida kuwa Lebanon jooga oo qaramada midoobay asaate Masar waxay u muuqataa in awood xoogan ay meeshii ku soo fatahday oo ay keentay awood aad iyo aad u xoogan oo ay ugu tala gashay magaca nabad ilaalin balse u muuqda kuwa maalmaha kamida ku duuli kara gudaha dhulka la haysto Israa'iil ay haysato haddaba waa isku jahwareersan yahay xubnaha difaaca Israa'iil waxay leeyihiin waa in dib looga fiirsadaa ku soo daritaankii ciidamada nabad ilaalinta ciidamada dalka Masar ka